kormeerkan ayaa ahaa mid maamulka gobolka Sool ugu korgalayo xaaladda abaareed iyo tan nabadgelyo ee gobolka Sool gaar ahaan deegaanada Tukaraq, Higlacaanood iyo Gambadhe, iyadoo dhinaca kalena lagu qoriyay dadka danyarta ah ee ku soo barakacay deegaankaasi, kuwaas oo loo qaybin doono raashin ay xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay deegaankaasi oo ka kooban 1250 qoys oo raashin ah. waxaana barasaabka gobolka Sool socdaalkaasi ku wehelinayay taliyaha qaybta booliska gobolka Sool, gudoomiyaha ururka Now ee gobolka Sool, isuduwaha hay'adda barakacayaasha ee qaxootiga Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uul ka socday hay'adda maareynta aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka. waxaana ay ka warbixiyeen xaaladda deegaanka iyagoona sheegay in xaaladda abaareed iyo tabarakacayaashuba ay tahay mid adag. anigoo ku hadlaya magaca hay'adda NADFOR waxaan halkan safarkan na hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool taasoo lagu talagalay 1250 qoys oo ay ka soo shaqeysay hay'adda NADFOR in lagu caawiyo. marka waxaan cadeynaynaa inaanu soo booqnay goobihii loogu talagalay oo mobilizationkii sameynay gaarsiin doonana. assalaamu alaykum. waxaanu saaka socod ku kala bixinay gobolka qaybta bari loo yaqaano degmada Gambadhe oo aan hadda joogno, Tukaraq iyo deegaan kale oo ka sii shisheeyo oo ay tageen dad barakacayaal ah oo ka ururay oo halkaasna dadkii reer miyiga xooluhu kaga dhamaadeen sida kuwa dhabarka ay ka muuqdo kale. isla markaana aanu uga mahad celinayno dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cidii kale ee naga caawisay garab naga siisayba. isla markaana aanu jecelnahay dadkii xoogaa xilli adag baa lagu jiraay aanu baaqiyar aanu raacsanayno oranayno naloo soo kordhiyo waayo wuxuu waa ka yara badan tahay inta. marka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Soomaaliland barasaabka iyo taliyayaasha ciidamada aaga sida hore ku sugan ay ka shaqeeyeen iyo taliyaha qaybta aan aad ugu mahad celinayno siday baa ugu soo jeediyeen dadkooda baahida iyo dhibaatada baan kugu wuri qof baa la doortaa oo la magacaaba kursiga iska fadhiya. horta waan ugu mahad celinaynaa kuraasida aad ku fadhidaan inaad dalka iyo dalka xuquuqdooda ugu qabataan waan idinku bogaadinaynaa. taa ka bacdi waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka baan kugu wuri Saylici. waxaan kale u mahad celinaynaa baan kugu wuri si gaara jananka ciidamada baan ku jananka jananadan anigu idhaahdaay Mudane Nuux waxaan leenahay janaysan sareeyo gaate aad iyo aad baan ku mahadinaynaa. waxaan ahayn kormeerku wuxuu isugu jiray laba ujeedo. mid wuxuu ahaa raashin ay ku soo deeqday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aan runtii uga mahad celinayo ilaahay ka sokow madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kuna yimi booqashadii madaxweyne ku-xigeenku uu deegaamadan ku yimi Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici markuu arkay baahida meesha taala. raashinka waxa la soo wakiishay oo inay qaybiso loo soo wakiishay hay'adda SVO xafiiskeeda gobolka Sool. marqaati baanu ka nahay in raashinkaasi uu marayo dariiqii dadka u baahan ay ku gaari lahaa iyada oo loo qaybiyo deegaamada la soo sheegay sida Tukaraq iyo Higlada iyo Gambadhe. gudiyadii degmooyinka ka dhisnaa ama magaalooyinka ka dhisnaana loo dhiibay xaafad waliba ama deegaan waliba tiradu lahaa muddo 4 cashana la siiyay inay ku soo diyaariyaan kadibna ay iman doonaan raashinkii iyo nidaamkii lagu bixin lahaa. aad iyo aad baan uga mahad celinahay hay'adda SVO xafiiskeeda gobolka Sool. waxaan mar labaad xusayaa gobolka inay abaar ka jirto baahsan oo ay wali mataqaanaay dadku ay ka soo kabanayaan abaartii hore. runtii gobolkan oo xoolo dhaqato u badnaa dadkiisu xoolii waxay ku baxeen abaartii aafadahayd. gobolkan wali way ka jirtaa culays fara badan na gobolka waa saaran yahay oo dadku soo hayaamaya. sidoo kale odayaasha deegaanka Higlacaanood ayaa ka hadlay iyagoona u mahad celiyay xukuumadda. alxamdulillaah rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam. bacda salaam anigoo ah Cabdirashiid Maxamed Calmi kuna hadlaya dadweynaha ku nool tulada Higlacaanood. waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo kormeer noogu yimi gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir taliyaha ciidanka qaybta booliska waanu soo dhaweynay. macaluusha iyo dadkuna aad bay u sii farabadan yihiin ay hayso reer miyiga tuulada dadka soo barakacay intaana waa ka gudoonay. anigoo odayaasha gudida Higlo waxaan halkan noogu yimi maamulka gobolka Sool oo uu wato barasaabku
iyo deeq ka timi Somaliland oo ka kooban 200 oo qoys iyada oo taasi ay waliba nagu yar tahay higlacaanood baan ka tirsanahay halkan waxaan ku soo dhaweynay barasaabkii iyo taliyihii qaybta Mawlid Ali Star TV Laascaanood